Haddiiba aad na soo booqatay like saar muuqaalka markale aan ku leeyahay. Haddii aad nagu cusub tahana subscribe ta ha iloobin. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa kelyaha muhiimadda ay u leeyihiin caafimaadka, waxyaabaha dhibka ku ah iyo calaamadaha lagu garto. 4 calaamad haddii aad isku aragto kelyahaaga shaqadoodu aad ayay u yartahay. Calaamadahaas waxaa ugu horeeya wareer. Calaamadahan 4 waxay noo sheegi doonaan in kelyaha shaqadoodu ay yartahay. Marka wareerka ayaa ugu horeeya. Wareerku wuxuu noqon karaa wareerka markaad istaagto oo kale ama jiifka oo kale inaad ku wareerto oo dhulka kula wareego oo kale. Matag iyo xanuun aad kuu qabto. Haddii aad matag dareento markasto, lalabo, markaad cuntada cunto, markaad gaajoon tahay, waxyaabahaas oo dhan haddii aad dareento kelyahaaga shaqadoodu aad ay u yartahay. Sidoo kale qodobka 3 wuxuu noqonayaa finan hal markaas oo ah. Inta badan finanka dadka qaba waa iska joogto, laakiin marka finanku markaas oo yacaan oo xasaasiyad oo kale aad dareento, waxay ka dhiganta waxaas kaliya maahan xasaasiyad iyo cudurrada maqaarka ee kelyaha ayaa shaqadoodu aad u yartahay, dhibaatana ka jirta. Waxaa ugu dambeeya barar lugaha ah. Barar lugaha haddii aad isku aragto waxaa iyadana mas'uulka ah ama ay dhibaato ka jirtaa kelyaha shaqadooda. Inta badan jirka kale way bararaan, xataa qofka waxaa laga yaabaa jirka kale inuu bararo, inuu barar ka dareemo, laakiin waxa ugu badan lugaha ayaa ugu badan. Sababtoo ah lugaha waxaa barar lugaha ku yimaada marka kelyaha ama sanbabada ama wadnaha ay dhibaato ka jirto. Qodobka labaad waxaan ku eegaynaa shaqooyinka inta badan kelyuhu noo qabtaan. Shaqooyinka inta badan kelyuhu noo qabtaan waxay naga ilaaliyaan dhiig karka. Dhiig karka sidee nooga ilaaliyaan marka? Kelyuhu marka waxay kontroolaan in ama ilaaliyaan jirka inay cusbada ku badato. Haddii kelyuhu mataqaanaa shaqadoodu ay yaraato ama dhibaato gaarto, cusbada jirka ku badanaysa, taasna waxay keenaysaa dhiig kar. Sidoo kale waxay naga ilaaliyaan sokorta inaysan nagu dhicin. Haddii sokorta jirkaaga ku badato, kelyuhu shaqadoodu hadday yartahay, sokorta jirkaada ku badanaysa. Marka sokortu jirkaada ku badatana, waxaa fududaanaysa in sokortu si sahla kuugu dhacdo. Sidoo kale waxay dhiigga ka sifeeyaan sunta. Kelyuhu iyagaa dhiigga ka saara sunta. Waxay sidoo kale soo saaraan kaadida. Marka kelyaha cusbadana way kontroolaan oo cusbada inay jirka ku badatana way ka ilaaliyaan. Sokorta inay jirka ku badato way ka ilaaliyaan. Sidoo kale waxay dhiigga ka sifeeyaan sunta. Kaadidana way soo saaraan oo way sameeyaan. 3 marka 4 cudur ayaa kelyaha si toos ah ugu dhacda. Cudurrada kelyaha ku dhaca iyo cudurrada kelyaha markay shaqadoodu yaraato yimaada way kala duwan yihiin. Marka cudurrada kelyaha ku dhaca waxaa ugu badan infekshanka kelyaha. Markasta dadka laga sheego way jiraan infekshan ayaa kelyaha qabaan. Sidoo kale waxaa ku xiga dhagaxaan inay ku samaysmaan kelyaha. Labada keliya ku samaysmi karaan, hal ka mid ay ku samaysmi karaan. Midigta ku samaysmi karaan, bidixda ku samaysmi karaan. Laakiin muhiimaddu waxaa waaye dhagaxaan. Dhagaxaanta marka laba nooc waxaa waaye qururax oo biyo iyo waxyaabaha haddaad cabto waxaa laga yaabaa inay kaadida soo raacaan. Waa wax carro kale ah. Nooca kalena waxaa laga yaabaa inuu weyn oo uusan kaadida soo raaci karin oo u baahan yahay ama daawo burburisa oo kadibna uu soo raaco kaadida ama in qalliin inta qofka lagu sameeyo laga soo saaro. 3 muuqaal ahaan kelyaha inay kala yaraadaan. Inta badan kelyaha muuqaal ahaan horta ma baris la eka. Waxaa laga yaabaa in mid wax yar tahay, laakiin inay mid aruurto, midna ay caafimaad qabto. Marka aruuritaankaas dhibaata isagaaba qofka ugu filanba. 4 inaysan shaqeyn kelyaha oo qofku keliya dhaqis galo. Waa tan ugu xun, keliya dhaqis inuu galo qofka. Sababtoo ah kelyihii ayaan shaqadoodii si fiican u gudanaynin. Waxaan kaga hadlaynaa qodobkan marka 4 shay haddii isticmaalkoodu kaa bato halis ayay kelyaha ugu jiraan. Marka 4tan shay isticmaalkooda mararka qaar waa muhiim in la isticmaalo, laakiin haddii ay kaa bataana dhibaato ka jirtaa. Waxaa la rabaa marka inaysan kaa badan. Waxaa ugu horeeya marka kaniiniyaasha xanuun baabiyaasha ah. Ha noqdo kan ugu liita paracetamol ha noqdo. Iskaba dhaaf dadka isticmaala tagmoolka ama diclofenka ama ibuprofenka ama aan dhaha xataa tramadolka. Dadkaas dad taga waaye. Xitaa paracetamolka haddii uu kaa bato oo ilaa waxaa jira dad isticmaala maalin kasta. Taas waxay keenaysaa marka in caafimaadka kelyahaagu uu halis galo. Koostada waa qodobka labaad oo kelyaha maaragtay dhibaato u keeni kara, halisna u keeni kara. Koostada waa fiican tahay, waxyaabo badan ay jirka u qabataa, faa'iidooyin badan ay u leedahay,
laakiin isbuucii 2 mar ka badan ama 3 mar ka badan in la isticmaalo ma wanaagsana. Qaraha sidoo kale qaruhu wuxuu ka mid yahay cuntooyinka ama waxyaabaha kelyaha u fiican, laakiin haddii uu kaa bato isaga laftigiisa wuxuu keenaa in kelyaha mid ka mid a in ay yaraato oo kadibna la saaro ayuu keenaa. Isaguna ma fiicna in isbuucii mar ama 2 mar ka badan in la isticmaalo. Biyo cabid yarida waa tan ugu daran dadka haysata. Kelyuhu kaligood iskama shaqeeyaan, waxay ku shaqeeyaan biyo. Biyaha markastood cabto dhiigaaga ayaa laga sifeynayaa sunta, cusbada jirkaada la dheelitirayaa, sokorta jirkaaga kuma badanayso sidaan hadda soo sheegaynay. Marka biyo cabistu waxyaabo badan ay kaa difaacaysaa. Xataa dadka biyo cabistoodu yar tahay dhiig karaa ku dhaca, sokoraa ku dhacda, waxyaabahaas oo dhan. Marka waa afartaas qodob dadka inta badan kelyaha dhibaatada u keenta. Qodobkan marka isaga waa qodobka ugu muhiimsan. Haddii kelyaha aysan si fiican u shaqaynayn, cudurrada aad rajeynayso. Kelyaha haddii aysan si fiican u shaqaynayn, cudurradan ayaad rajeynaysaa. Waxaa kow ka ah sokor. Marka kelyuhu si fiican aysan u shaqaynayn, sokorta jirkaada badanaysa, taasna waxay keenaysaa in sokortu kugu dhacdo. Sidoo kale waxaad rajeynaysaa haddii kelyahaagu si fiican aysan u shaqaynayn in dhiig kar kugu dhaco, sababtoo cusbada jirkaagii ayaa badanaysa. Infection dhiigga raaca kama baxaysid. Haddii aad aragto infectionka dhiigga raaca ayaa kugu badan markas haddii lagu dhaho, waxaa dhibaato ka jirtaa ama kelyahaagu ayaan si fiican u shaqaynayn. Infectionka kaadi haysta, inta badan dadka kaadi haysta ama kaadidu gubto ama kaadida problem ku qabo ama kaadidu xataa ku kala go'do, waxaa dhibaato ka jirtaa kelyahooda. Marka kelyaha waxyaabaha aad isticmaali doonto waa soo sheegnay. Waxaa ka mid ah biyo badan inaad cabto, 5 galaas oo kale maalintii ugu yaraan inaad cabto. Waxyaabaha cusbada ku badan tahay inaad iska ilaaliso. Waxyaabaha sokorta ku badan tahay inaad iska ilaaliso. Waxyaabahaas oo dhan marka dhibaatooyin. Saddexdaas marka haddii laga helo biyo cabid badan, sokorta oo aad iska yareyso cunisteeda, cusbada oo aad iska yareyso cunisteeda, kelyahaaga caafimaadkoodu 100% ayuu noqon. Qodobka ugu dambeeya waa qodobkan 4 calaamad haddii aad isku aragto waa digniin ka timid kelyahaaga. Digniin ka timid kelyahaaga waaye 4tan calaamad. Hore marka qaybo kale hore usoo sheegnay sida qofka finanka, bararka lugaha, finan qofku inay ka soo yaacaan. Waxyaabahaasaan hore usoo sheegnay. Iyaga laftigoodu waa digniin. Laakiin digniintan waa digniintii ugu dambeysay oo ay kelyuhu ku siinayaan. Waxaa ugu horeeya marka barar indhaha qaybtooda hoose ah. Haddii indhaha qaybtooda hoose baararka hoose meesha aad barar ku aragta ama madow ay noqdaan inta badan waxyaabo kale oo keeni karaa jira sida isticmaalka taleefanka zaa'idka oo kiyaalaha badan. Laakiin haddii barar aad ku aragto meeshaas waxay u badan tahay ama aaba wanaagsanba inaad kelyaha iska baarto ayaa wanaagsan. Sidoo kale haddii kaadidaada laga helo urine protein, taasna waxaa qasab ah in isticmaalka proteinka aad joojiso habeenkii, sida digirta inaadan habeen isticmaalin, ukun inaadan habeen isticmaalin. Taas sababtoo proteinka badan laftigiisa haddii jirkaaga ku bato oo kaadidaada soo raaca protein, kelyahaagu digniin ayay ku siinayaan. Waxaa marka sidoo kale ku jira inaad ku daasho jiifka, oo marka aad jiifto aad dareento in kelyuhu ku xanuunayaan jiifka waqtiga dheer ugu daran. Sidoo kale waxaa ugu dambeeya kuleyl inay noqoto sariirta dhinaca aad uga jiifto. Marka haddii aad soo kacdo sariirta dhinaca uga jiifto oo aad u kulul, iyada laftigeedu waa digniin ka timid kelyaha. Marka 4tan calaamad barar indhaha ah, kaadidaada inaad protein laga sheego, waa iska baari kartaa dhib malaha, waa wax fudud. Inaad ku daasho jiifka oo kelya xanuun aad dareento markaad jiifto, ama aad ku qasban tahay inaad dhinac u jiifto oo dhabarka aad ku xanuunaya, iyo inaad kuleyl ka dareento sariirta dhinaca aad uga jiifto. Intaas oo lagu daray bararkii lugaha, lagu daray finankii ama xasaasiyad oo kale in lagu qabto. Intaas haddii aad isku darsato waa digniin inta badan ka yimaada kelyaha. Insha Allah waxaan rajeynaa cashirkan inaad aad uga heshay. Like saar muuqaalka haddii aadan hore like u saarin. Haddii aad nagu cusub tahayna subscribe ta ha iloobin.